السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا كسر هذا وروح العالم كيدي كهيني كسر هذا يوتيوب channel كيدن بدي يبر ورك عالم هو وجود دورون مدحوينها dalka Mareykanka Donald Trump oo ku celiyay hadallo ku saabsan inuu Mareykanku Greenland u baahan yahay taasoo dibadda laga cambaariyay gaar ahaan Denmark iyo hogaamiyaal Yurub ah ayaa si adag uga jawaabay iyagoo oo sheegay inuusan Mareykanku xaq u lahayn inuu xukumo dhul kale. Dhanka kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya Yemen si loo gaaro nabad. Dhanka kale, warar ka soo dhacay hadda Nigeria, wararka soo baxay ayaa sheegaya in weerarro hubaysan uu ka dhacay degmada Kuzawani ee Nigeria, meel in ka badan 30 qof lagu dilay laguna afduubtay dad kalena lagu barakiciyay. Dhanka kale, xildhibaan Axmed Aadan oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidan yidhi: ciidanka Soomaaliya waa la siyaasadeeyey, kuwa Jubbaland iyo Puntland jooga dallacsiintii waa laga reebay, wasiirka gaashaandhiguna waa ninka idaacadaha la soo taagan ee aad moodo afhayeenkii xukuumadda. Dhanka kale, Puntland madax dhinaca jidka ah ayaa lagu dilay sarkaal booliis oo Puntland ka tirsan iyo askar kale oo dhaawac ka soo gaadhay. wararka naga soo gaadhaya Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta joojisay shaatiga ka qaaday Air Djibouti, taasoo ka dhigan in duulimaadyadii u dhexeeyay Djibouti iyo Somaliland hadda la hakiyey. Sababta Djibouti ayaa ka soo horjeesatay aqoonsiga ay Israa'iil siisay Somaliland. waxay arrintaa u aragtaa mid khatar ku ah xiriirka labada dhinac. Saamaynta diblomaasiyadeed ee joogtada ah Hargeysa iyo Djibouti waa la joojiyey. Safarkan dadka iyo ganacsatada waxay u baahnaan doonaan waddooyin kale oo dhulka ah. Dhanka kale, madax dhaqameedka gobolka Awdal iyo Sanaag ayaa cambaareyn u soo jeediyey wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. waa kuwana ila yar dhageysta. gaalkacyo ilaa xamar laami madow bay ahayd maalintii Soomaaliya dhisnay, maantana godad baa ka qodan. dadkaagu maanta wuxuu isku dilayaa inta u dhaxaysa maxaan ku radaa galdogob iyo balambal iyo gaalkacyo inta joogtay isku dilayaan oo maalin walba 300 bay dilaane. waar haddaad wax tarayso oo ummad Soomaaliyeed u gurmanayso, horta kuwaa u gurmo oo kala badbaadi oo run sheegayso. waa midda labaad kuwii aad qixisaad tidhi tuka qurux badan baan idin dhisaya, xeryihi ay ku urureen xamar baad maantana ajnabi ka iibinaysaa iyagiina banaanka u tuurtay. adigu isku noqon ku leeyahay waxa la yidhi habartii gudaheeda nuurta ayaa ka kalena ku darta. waar waxaad boorama ku dumi boorama ma dumin karaysid. booramana aad u malihid Somaliland baale annaga leh waan dhisannay. jaamacadaha iyagii baa noo shaqaynaya, laamiyadeedii baa noo shaqaynaya, daaraha iyagii baa noo dhisan, baaxmushtariga iyagii baa noo kala socda. waa halka maxastaadu taalo fiqiyow. caruurtaadu halkay wax ka barataa waa boorama, xamar waxba kama barato. beenyaynaan isku sheegine naga daa propagandadaad caruurtayada maaragtaa wax weeye ku soo dhex tuurayso. haddaad dayn weydo waad ka naasnaasin doontaa. annagu waxaan ku leenahay wax ka qabo kuwaadaad u mas'uuliyadda adiga ku dhiibtaan oo mas'uuliyad kuma aanan dhiibin isagana intaasaan le. daawadayaal, war waxaanu idinka haynaa caalamka iyo Soomaalida waa naga intaa. iska subscribe, like iyo share please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.